runtii waxaan u wanaagsan daawadayaal waa anigoo Nuurkey halka naga daawanaysan waa Nuurkey official fadlan hadda ku cusub tahay channel subscribe saar sidoo kale gambarka fursa u aan noqoto daawadayaasha ugu horeeya amal waxay ku nooshay dalka Holland waxay gashay process 5 sano ka hor oo uu sameeyay ninkeeda hore ee Soomaaliga ahaa amal waxay dugsiga sare dhexe ka soo dhameysay magaalada Muqdisho amal waxay doonaysaa inay jaamacad bilowdo waalidkeedu way u awoodi waayeen halka amal asxaabteeda jaamacad bilaabeen dal iyo dibad balse ayada way awoodi weysay inay jaamacad gasho amal qoyskeedu waxay u soo bandhigeen talo ah inay guursato wiil adeerkeed dhalay aabaheed ayaana u soo bandhigay balse amal way diiday inay guursato adeerkeed oo waxay lahayd hami waxbarasho dibad intaas kadib maxaa dhacay nala daawada muuqaalkan video-ga amal raali kama ahayn guurkan in adeerkeed balse aabaheed oo ku qasbay yirina waan ku dilayaa waana qasab inay guursato adeerka amal waa lagu meheriyay muddo 2 sano ah ayay isqabeen waxayna dhashay 2 caruur ah ogow amal waxay ahayd qof aan ku qanacsanayn ninka ay carruurta u dhashay mar waliba waxay ku canaanan jirtay wax ma haysatid bilaa qarash baa tahay sida oo ahayd wiilkii waxa uu helay process dhoof ah oo waxa uu u safray dalka Holland amal waxay baratay nin Arab ah oo ajnabi ah ninkaas oo ay xiriir la sameysay ninkii oo dambeyntii dilay oo garaacay kana duubtay muuqaalo anshax xumo ah waxa uu mar waliba ugu hanjabay inuu muuqaalka meel waliba uu dhigayo nasiibku waa halis oo mar ayuu ka soo baxaya waxay qiyaantay in adeerkeed oo jeclaa waxaana ku dhacay nasiib xumo intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay sidaas nabadgelyo mahadsanidin.